maxay caafimaad medicine caafimaadku waa barashada cilmiga ka hortagga daaweynta iyo la tacaalida cudurrada sidoo kale waa aqoonta lagula falgalo noole bukaana si loo xaqiijiyo badqabkiisa iyo badbaadadiisa yaa baran kara cilmigan qofka baranaya aqoonta caafimaadka uma baahna inuu lahaado mawhibo ama karti gaar ah waxaa ku filan inuu lahaado rabitaan dhab ah oo ku aadan barashada cilmigan taasoo lagala jeedo inay qofka ka go'an tahay inuu bixiyo waqtiga iyo dadaalka lagama maarmaanka u ah barashada balse haddii la tilmaamo qofka ay ku soo baxayso ugu horeynba waxaa la xusi karaa marka laga eego dhanka akaademiga ah ardayga ku fiican maadooyinka biologiga chemistryga iyo xisaabta haddii laga fiiriyo dabeecad ahaan waxaa ku soo baxaysa qof leh tilmaamaha kala ah dabacsanaanta deganaanta iyo tan ugu muhiimsan oo ah dhiiranaanta barashada cilmigan ma fahanba mise waa xifdin marba haddii laga hadlayo caafimaad medicine waa kuliyad u baahan fahan iyo xifdin wada jira oo laguma kaaftoomi karo mid ka mid ah balse muhiimada ugu badani waxaa leh xifdiska maadaama caafimaadka uu yahay cilmi oo aysan ahayn aragti qaleel ah waxaase xusid mudan in wadada ugu fudud ee wax lagu xifdiyo ay tahay fahamka hore sababtoo ah marka aad wax fahanto ayaad si fudud u xifdin kartaa sidaa darteed cilmigan waxa uu soo dhaweynayaa ardayda xifdiska iyo kuwa fahamka u saaxiibka ah labaduba waa imisa kharashka iyo waqtiga ay dalbanayso kuliyadda caafimaadka kuliyadda caafimaadku waa jaadgooni ka duwan aynigeeda waxaa ku baxa qarashaad aad u fara badan marka loo fiiriyo barashada culumta kale sidoo kale waxaa la daraaseeyaa sanado ka badan sanadaha kuliyadaha kale 6 ilaa 7 sannadood ayay qaataan daraasaynta taasoo ka dhigaysa in kuliyadda aysan ahayn mid fudud oo waxa ay liiska kaga jirtaa alaablaynta kuliyadaha caalamka ka jira sidoo kale waa kuliyadda qofkii bartaa gacanta loo gelin doono jirka qof bini aadam ah oo noloshiisa taas oo ka dhigaysa in si aad ah loo hubiyo aqoonta iyo xirfadda gacmihiisa ay leeyihiin maxay kala yihiin takhasusaadka iyo qaybaha ay kuliyaddan ka kooban tahay maxay kala yihiin takhasusaadka iyo qaybaha ay kuliyadda u kala baxdo takhasusaadka kuliyadda lama soo koobi karo waxa ay ku lug yeelanaysaa wax kasta oo quseeya ka hortag daaweyn qaliin iyo in la tacaalida bukaanka socda iyo bukaan jiif mar haddii aad dhex gasho kuliyadda adiga ayaa dabaalan doona bad takhasusaad ah balse kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah general medicine pediatric public health gynecology surgery dental anatomy nutrition iyo dietetics waa maxay fursadaha shaqo ee u baahnaan doona ardayga kaas oo qalin jibinaya kuliyaddan baahi noocee ah ayaana cilmigan loogu qabaa suuqa iyo bulshada dhexdeeda baahida caafimaadka waa mid ka mid ah baahiyaha asaasiga ee bulshada iyo baraaraba xilli kasta oo la joogo waa mid lagama maarmaan ah sidaas darteed ardayda ka soo qalin jibisa kuliyaddani waxa ay haystaan mid ka mid ah fursadaha ugu badan ee ku jira suuqa shaqada caafimaadka waa aqoon iyo xirfad isla socota waana ay yar tahay amaba ma jirto cid labadaasi isku haysata haddana shaqo la-aan ah mushaarka laga qaato shaqada caafimaadka waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee qofka shaqaale uu helo sidoo kale xirfadan waa mid ka mid ah madax bannaan loogu shaqaysan karo waa xirfad iyo shaqo lagu samayn karo
sumcad iyo magac caanimo sidoo kale lagu hodmi karo. inaad baratid caafimaad waxaa ku helaysaa faa'iidooyin kala duwan iyo faa'iido daro. faa'iidooyinka ama waxyaabaha togan ee aad ka helayso barashada cilmiga waxaa ka mid ah waa aqoon ballaaran oo waxtar la taaban karo leh, farxad joogto ah maadaama aad dhibane bukaanaha caawinayso, magac makaano iyo sumcad aad bulshada ku dhex yeelanayso, hodantinimo iyo maal muuq leh oo maadaama dakhli sareeya aad helayso, iyo tan ugu muhiimsan oo ah naxariis iyo u turidda dadka kale. waxyaabaha taban ee laga dhaxlayo barashada caafimaadka waxaa ka mid ah waqtiga la baranayo aad u fog maadaama shahaadada koowaad ee bachelorka laga qaato 6 ilaa 7 sano. haddii lagu sii daro inta aad takhasuskaaga diyaarinayso, tababarka qaadanayso ama aad waayo aragnimadaada kasbanayso waa muddo aad u dheer. sidoo kale lacagaha ku baxa barashadeeda waa kuwo qaali ah oo jeebka ay ka soo baxayaan waa laga dareemi doonaa. waxaa xusid mudan maadooyinka la qaadanaya oo aan ahayn kuwa fudud awgeed waxaa qofka khasab ku noqonaysa inuu juhdi iyo soo jeed habeeno uu ku talagalo. waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha taban inuu qofka u banbaxayo xaalado aad u murugo badan, argagax leh oo aan dareenka la siin karin, taasoo go'aan adayg iyo shakhsiyad karti leh u baahan doonta. sidoo kale qofka waxa uu weyn doonaa xorriyadda waqtigiisa oo waxaa laga yaabaa in familkiisa laga soo kaxeeyo ama hurdo laga toosiyo. waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha tabani inuu qofka u banbaxayo xaalado aad u murugo badan, argagax leh oo aan dareenka la siin karin, taasoo go'aan adayg iyo shakhsiyad karti leh u baahnaan doonto. sidoo kale qofka waxa uu weyn doonaa xorriyad waqtigiisa oo waxaa laga yaabaa in familkiisa laga soo kaxeeyo amaba hurdo laga soo toosiyo amaba xaalado uusan jeclaysan doonin inuu howlgalo ayuu ku qasabnaanayaa shaqadeeda. sidoo kale waxaa kaloo qofka gacanta u geli doona baahiyaha dadka cawradooda iyo wax kasta oo loogu faa'iidaysan karo qof bani aadam ah, taasoo ka dhigan seef laba af leh oo dhinacii loo doonaba lala aadi karo. waana arrin qofka ugu baahnaan doonta iimaan iyo dadnimo dheeraad ah. ugu dambayntii, kuliyadan waa mid wanaagsan ahna aqoon la barto tan ugu sharafta badan maadaama ay qusayso caawin, badbaadin iyo rajo u celin qof bani aadam ah. waxaana baran kara labadaba jinsi, lab iyo dhadig. sidaa darteed qof walba oo raba oo danaynaya inuu barto waa uu baran karaa waana ka gungaari karaa hadduu jecel yahay insha Allah.